بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa i hor yaallo laba dhaar uu ilaahay ku dhaartay geedahooda mirahay soo saaraan. ilaahay wuxuu ku dhaartay qur-aankiisana ku leeyahay wattiini wazaytuun. wattiini markii la dhaho waa kana geedka tiinka la yiraahdo, waa kana saa u jeedaan, waa fresh waaye. inuu tiinka fiican yahay maxaa ku ogaanaysiin uu sokor badan leeyahay? waxa waa jilac waaye. haddii la kala gooyo dhexdiisana waxay isku bedelaysaa saa u jeedaan guduud. noocan waxaa la dhahaa turkey brown. waa adoo sokor cunaayo kala camal waaye. soomaalida geedkan magacyo badan ee u yaqaanaan, waxay u yaqaanaan daray, barde, mukay. miro mukay iyo miro barde iyo miro daray duuduubaa loo cunaa. saasaa la isku dhahaa, dalam aa la siiyaa, saasaa laga wadaa. aniga waa furaa, laakiin gudahaasaan ka cunaa, qoloftaan kama cuni. sababta qolofta wax lagu soo buufiyey waddankan ilaahay baa og, waa waddanka Masar waaye. marka geedkan faa'iidadiisa waa maxay? oo waa isweydiini kartaan, maxaa laga faa'iidi karaa geedkan? geedkan caafimaadka wax weyn uu ka tarayaa. kow, qofka calool xanuunka qabo ee calooshiisa dhegan tahay, kan hadduu cuno caloosha way u furaysaa, oo digestive systemkiisa aad iyo aad bay ma aragtay u horumarinaysaa. sidoo kale waxaa ka badan fiber. waxa waay geedkan sidoo kale waxaa ka buuxo waxa la yiraahdo antioxidant. antioxidant waa maxay? wuxuu furayaa dhiigga iyo wadnaha. dhiigga marka wuu soconayaa, saas darteedana blood pressure-ka ama dhiigkarkii waa yaraanayaa. qofka hadduu gabow ma aragtay uu ku gaboobayay si dhaqso ah, gabowgiisana waa yaraanayaa. marka geedkan hala badsado, caafimaadka ilaahay intaas ku daray, ilaahayna ku dhaartay oona dhahay wattiini wazaytuun watuuri siiniin. marka ilaahay mahadiisa geedkan waxaan keennay geedkan maaragtay mirahan geedka ay ka baxaan Soomaaliyaan keennay. Soomaaliya haddeer ay ka baxayaan insha Allah bilkariim. weli waxay ka sii baxayaan Muqdisho iyo Afgooy, labadaba waan ku beernay. waxa waa insha Allah inay ku guuleystaanna waa rajaynaynaa. sanadka soo socdo waxaan rajaynaynaa mirahan inay Soomaaliya ka soo baxaan, wayna ka baxaan. run ahaantii waxay ka baxaan hadda Puntland waa lagu beeray, waana lagu guuleystay. sidoo kale ma aragtay Somaliland waa lagu guuleystay, dhulka deegaankana waa lagu guuleystay. meesha weli la dhaceeso in ma aragtay lagu beero oo lagu tijaabiyo waa Muqdisho. intaan ka ogahayna weli Muqdisho geedkan lagu baroobay ma jirto, laakiin dhulka ugu fiican wuxuu noqoni doonaa insha Allah bilkariim Afgooye iyo dhulkaas ma aragtay Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. marka Soomaaliya geedkan ka warjiriya. sidoo kale waxaa u jeedaan meeshaan saytuunkii waaye. saytuunkii anigaa sameeyey. markii ugu horeysay waaye. saytuunka ma la cuni karo oo dhadhankiisa waa qaraar waaye, laakiin waa la khamiiriyaa mase waa la qurmiyaa. biyo iyo cusbo iyo qalal la isku daraa. waa isku daray. aniga kuma najixina u maleynaa, sababtoo fanga ayaa ka dhashay meesha sidaad u jeedaan. oo haddeer mirahaasita waa iga halaabeen, laakiin waa tijaabadii ugu horeysay oo saytuun aan ku sameynayay inaan ka dhigo maxaa la dhahay khamiiriyo. marka cuntada la khamiiriyo ayakana caafimaadka ay wax ka taraan, hala barooweeyo. marka Soomaalida Masar degan faa'iido weyn waxay haystaan haddeer. geedkan wuxuu bilowdaa bisha 9aad ilaa iyo bisha 12aad wuu socdaa. haddeer waqtigii ugu dambeysay marayaa. ha laga faa'iideysto, ha la soo iibsado, ha la cuno. wuxuu ka hortagayaa waayeelnimada oo bini aadanka ma aragtay unugyadiisa uu ma aragtay dhiig u socodsiinayaa, calooshuu socodsiinayaa, wadnuhu u fiican yahay. marka waa kaas. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.